guddoonka baarlamaanka oo guddoomiyaha u horeeyoon horena u soo hambaliyay wafdiga aan isla soconay oo aad u xushmayseen xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaa idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii socodkeennu wuxuu hordhac u yahay caleemasaarka dastuurka kaliya kuma eka runtiina aad iyo aadaan u faraxsannahay sida naloo ableeyey oo naloo soo dhoweeyey. runtii karaamadan idinkala kulannana aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa intii yartaaheedoo aan joogna. magaalada dhuusamareeb oo caasimadda galmudug runtii hadda ka hor anoo madaxweynaha la socda ayaa nimidnay. marka kelimad waxaan idhi haddii soomaaliya maxogeedu fayaabaado inta kalena waa fayaabaahe. marka dhabarkii soomaaliya markaan inaad maxoga gara weyday inaan u fahmee hadda dhabar inay tahay inaa idinkugu bedelo waayo oo dhabarkii soomaaliya haddii halkaanu hagaagto majaha iyo madaxuba waa hagaagaya. maxaa yeelay bini aadanku saddexdaas meelood oo muhiim ka yahay. guddiga ama wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddiga la socodka iyo guddiga madaxa bannaan intaba runtii waxay idinka rabaan inay si idin qabadsiiyaan waxay idin dhaafa si degdega inaad u qabatoontaan oo waxyaabihii intii aad wax dhisayseen oo brobleemka aad ku jirteen waxay rabaan waxay idin dhaafay in laydin qabadsiiyo si fudud oo laydinka dabageeyo dadkii goobjoogga ahay. weliba idinku waxaa tihiin dad fahmo badane idinkoo fahmadiinna ka faa'iidaysanaya. dhinaca kalena waxay ka tahay wamaa cala arasuuli ila albalaaqulmubiin oo guddigu wuxuu rabiyaa galmudug inaan gaarsiino dastuurkii qabyo qoraalka ahay ilaahayuu marag ma ka taha. runtii haddee cabdi qaybdiid oo barlamaankii labada aqal madax ka ah aadna og tihiin inuu aas-aasa ka ahaa galmudug hadda wixii uu keenay wasiir somalilan ka soo jeedana ou horboodayo haddee annagana aan mataqaanaa garbaha uga jirno. reer xamarna aad arkee koofiga sidana loo kugu duceeye waxaan rajaynaynaa marka inaad number 1 naqan doontaan oo jawaabta koobaad oo warqadda ku qoran oo laydinka rabo inaad naqan doontaan dowlad goboleedka ugu horeeya ee ka soo jawaaba ee lagu daydo oo example laga dhigo. marka runtii waxaan isleeyahay aniga doorkii hore horta haddaan fiirshay wax iga maqan jecebtiyaa ka jira iyadana hadda in gurcaal iyo matabaan area laga dalbaa lay sheegay. aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba. runtii soomaaliya markaan meelay ku gambata male mar haddaad idinka nidaamka waxay yihiin nidaam diid iyo nidaam doon iyo nidaam hogaamiye waayo bini aadanku. marka haddii aad nidaamka hoggaan u naqataan nidaamkina taageero ou helo nidaam diidka waa laga adkaaha. marka waxaan rabnaa nidaam diid inaan meel uga soo wada jeesano si markaas ay soomaalidu ay u huru marto oo ay u kacdo oo maanta mataqaanaa yididiilo fiicanaa noo muuqdee
waxaan idinka rajaynaa inaad naga doontaan kuwii lagu daydo oo la yiraahdo dambeeyow ka dhaqaa la yiraahdo marka maadaama ay dowlad goboleedyadii gadaal ka dhisma aad tihiin waxaan rajaynaynaa inaad horumartaan idinkoo kaashanaya duruufaha aad soo marteen iyo waayo aragnimada idinka muuqata iyo sida aad u bislaateen iyo sidii aad wax walba u xalliseen oo ay maanta joogto wadar ogol iyo walaaltinimo iyo wax wada qabsi inay galmudug ku soo aruurto xaaladeedii dib u heshiisiintuna ay halkaas ka socoto waana laydii hanweyn yahay marka waxaan rajayaa inaad noqon doontaan kuwa la mahadiyo idinkuna ismahadisaan aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum